walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. waxaa loo baahan yahay xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka waramayo, alghillu walxaqdu walbagyu walxasadu, waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo. soomaaliga inaanan kuba wada garan baa suurtagale. waa waxa laaliya wixii uur xumo iyo uur ku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan. qofka muslimkaa 3 meeloodunbaa meel laga rabaa inuu deganaado. inuu ka hooseeya marnaba sharciguma soo dhaweynayo. martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaar oo ilaahay doortay. waa martabatu liithaar. naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa, iyadu waa martabad dad gaara uun. ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayu'iruuna calaa anfusihim walow bihim wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. martabad labaad ayaa jirtoo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato. an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik. martabad ka hooseysaa jira labadaaba. waa tan aynu ka waramayno. waa qalbigaagu inuu caafimaad qabo, at least inaad bukin, ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba, ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto. maanta masaa-il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno. maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan. ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahy, ma aha inuu dadka ka caqli yaryahy, ma aha inuu dadka ka hobi yaryahy. waxaasoo dhan maaha. ilaa nuclear weban bay haystaan. laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa? waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan. dabeetana ninba nin rabo inuu reebo, ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo, midba miduu bagaleeyay jabkiisa. mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guuleysto, midhmidh uma guuleysto, koox kooxna uma guuleysto, dowlad ahaanna uma guuleysto. walidaalika caalamulislaami waxay yaalla waa uurxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya. meel kastoo dagaal ka dhacayo, gaalada qaar baa la safan, qaar baa dhan kale u safan, dhammaantood baa colaada iyo uurxumadu dhex taalla. dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo, oo soomaalidu ugu horeyso. soomaalidu way soo kartay, dhib tiro badan baa soo gaadhay. in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay. hadda dad badan baa waxay leeyiin aan dib u midowno, dib u midowno. haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa? su-aasha waa taa. haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa? haddii xanuunada tani, idan kelimatulmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto. in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan. qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan iscafiyo oo isa saamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo. qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan, qof qura xataa hadduu yahay, wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba, isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn, isagoo aan laabtu huraynin. dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila. maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku-dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa, isagoo ciil qabu sariirtiisa taga. haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. ilaahay subxaanahu watacaala markuu nebi ibraahim inooga waramay baryadiisii, fiirso, nebi dhan oo rabbi soo diroo ilaahay baryaya, muxuu leeyahy? walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahayow hay hoojinin buu leeyay maanta dadka lasoo saarayo, maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin,
maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu. culamadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu lqalb waa laba shay. midna waa salaamatu lqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin, laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay towxiidka aad u khaalis yeesho. midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniinta inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laabxumo iyo dhib aanad u hayn. walidaalika nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi laibraahim id jaa rabbahu biqalbin saliim. nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi, dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid a. id jaa rabbahu biqalbin saliim baa ilahay yidhi, markuu rabbigii ula yimid qalbi saliima. idan ayuha laxiba, in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab, aday kuu tahay caafimaad qab. walidaalik aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan. macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaanu dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca kan tahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy haddaabay dhacday in dhibi jirto janno ilaahay u qoray kuwa laga siibaa buu noqonaya. wanazacnaa maa fii suduurihim min ghill ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. waxaanu ka siibnaa baa ilaahay yidhi wixii laabtooda uu xumo ku jiray, wixii xumo ku jiray. macnaheedu waxa weeyaan saaxibu nicma maaha qofka laabtiisu bugtaa, xataa fi dunya markaa kuma aha. haddaad rabto ahlu jannuhu siday u nool yihiin oo kale inaad u noolaato adoo adduunka jooga, noqon maxay mid laabtiisu caafimaad qabto. ahlu jannaha ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahuduu ila ayibi min alqowl. war xunba ma maqlaan, halkan war xuno badan baad maqli. laakiin waxaad u baahan tahay inaad laabtaada ka shaqayso